And hold on, can you hear me now? Okay, and maxay ahayd toole haddaa in yaroo video aan ka hadlay iyo sawiraan soo dhigayaa jirtay n waxaan arkay private messengerkaygii oo hadda aan furay oo qarxi rabo iyo whatsappkii. Why guys 1000 messages ana igu soo qoraysid iyo codada oo mainly cala waxaana mainly ileedihiin wax astur. No, listen. dabadaada adaa mas'uulka ah, diintaadana adaa mas'uulka ah. aniga haddaan public soo dhigo ama qof kale u geeyahay ii qarin saaxib soo dhig media anaa kuu share garaynaya. wallahi anaa kuu share garay, wallahi waa iga daacad, anaa kuu share garaynaya. ii soo dhig halkan because anaaba ogol bade anaa dhigtay soo maaha. laakiin waxaan diidayaa number 1 beenta, number 2 nabyada, waxaan diidayaa waxaan la qabiilaynayo iyo waxaan la leeyahay reer hebel. hadda naag iyo maxaan ku raahdaa iyo 3 nin oo meeshan ku duuban codkooda haddaa idin dhageysiyo honqaaca ku qabanayso waxay ku leeyihiin naayaahe maxaad isu bahdilaysaa midgaha uga hadlaysaa. aabbaay midgahaaga was adaa siilkooda doontay dee gabar Soomaaliyeed waay ka dhamow dee aday qabiilka kula yahay dee wax anuna nasiya inaacda ma qoro. waxaan diidanahay waxay tahay haddii clear inta Raxma Rose inta soo fariisatid aad dhihi lahayd ninkaas ama nikaax beenaada nagala dhaxeeyay ama relationship aan noo dhaxeeyay waxaanu igu sameeyay wuuna iga qaldanaa haddaa dhihi lahayd okay ama waa laga caawin lahaa ama waa lagugu daawan lahaa, labadaas mid unbay ahaan lahayd. laakiin maxaa samaysay gabaraa siilkayga iga duubtaa tiri waa aya naagta siil kale u baahan inay aragto iyo foto. naa beenta iska daa, nin kaloo meeshaas joogaad kortay. cawaanti kaleetee waalneeda ayaan hore istaalka mentalka laga soo bixiyay meeshay kuleeda waa heelina wartaas iga daa horta. yalow isdhex martay walaale waad waalatay dhimirtaga dhammaan kuma soo noqdo waa xanuunsantahay Allah ku caafiyo ani ma kula tirsanaay. xitaa waxaan diiday in gabadhaasaytay hal kelmad loo dalaciyo because madaxa ayaa wax ka gaaray. qofka markuu xanuunsan yahayna xanuunka Allah keeno laguma tunto. marka gabadhaas yaa la caayin yaan loo jawaabin xamdi galgacal ma la dhahaa hala daay wallahi waa qof xanuunsan na caruurtaadaasaytay korso haddii kaleeto u dhib dowladda ani ma kula tirsanaay. ciddaa doonto isaga hiili, ciddaa doonto iska cay kolley dhimirtaga dhammaan kuma soo noqdo. qof xanuunsanaa tahay waan ogahay, isbitaalkii aad gashay cirbadihii lagugu soo duray kulli waan ogahay. marka walaal ani ma ku caynaayo, caafimaadan kugu daray waana kuu duceeyey. wax kaleeto ku dhahaaya ma jirto. laakiin Raxma Rose aan haystaa. Raxma Rose inaad ummadii shaki kala geliso, gabdhihii yaryaraa aad message beena u dhaafto oo dhilanimadaadii aad marqaatiyo beena u samayso oo sharaf adiga aad dhowran weysid annaga aad naga dhex raadiso oo haddana naac inta aniga la ii soo dhaho la ii dhaho maxay ahayd ma dhibaan ahaantood ugu taagsane iyo maxaa midgaha kuu geey. idinkaaba isqaldaayabe waa Soomaaliyeed saaxiibno bartaasaana ka taaganahay ani igaga filan. inta tusma aan dhahay inteeda kalena waan dhahayaa tan because labadooda waa ii siman yihiin. waa laba naagood oo Soomaaliyeed wasaqda ay ku dhaqmayaan cimrigooda iyo aqligooda iyo diintooda hadday celin weysana fartaa laga saaraa because iga siilkooda qaybiye. marka inay dadkii shaki kala geliyaan oo maxaan ku yiraahdaa ay tashwiish kala geliyaan oo aan la aamini waayo waxa ka dhalan karo from now on to 50 years waxay tahay inay dabar go'do Soomaalidii because Soomaalidii awal baa la kala qaxiyay, awal reer qabiil iyo reer hebel la kala dhigay. hadda hatii tashwiish la kala geliyo because of habar sharmuute waxa dhacay waxay tahay inaan la is aaminin. dabar go'a Soomaali ku soo socda marka waxana koos gareenayo waa habar qaxaabada oo markay dhalmo goyse dhalanimo u kaba gashatay waana intaas oo kaliya because iyada u tagtay ninka hadduu qaldan yahayna inay sheegtay saxariirta isdhigta feeri runta hadday sheegi lahayd ninkaasaytii la qabsan lahaa. meeshuuba u fadhiya u dhaga dheeri u dhukuran yahay wuxuu ku leeyahay bade hadhowna wuxuu leeyahay waa midgaa maaha abaawos wax ka siilmac ma leh. ta kula dhalatay iyadaa ka siilmac maxaa kuu fariisii meesha naacda joojihay marka wax midgal dhaha ma jirtee. anigana hay gula soo qamaamin waxaasaytii laakiin
gabaray intaad gabar kale kor saari lahayd ood gabar kale nabi lahayd qasiiskan iyo aabiis wasaxan sidan kuu galay runta maa ka sheegtid waa adiga injineer amiirna mar koray marna waxa koray maxaan ku yiraahdaa ee gabar kaleeto ingiriiska joogta koray oo laha futada cambaar igaga taalay xaqiiqada ma sheegtid ama ha lagu hiiliyo ama ha laga tagay runta idin dhibaysa ma aho shalmad weyn anaha ii soo xiranin been badana kastuumooyin ma wataan marna idin sheegay marka ku luuqay ku soo qaylinayo anu qabiil ma qoro runtan qora laakiin reer hebelna ma qoro ta ila dhalatay haday dhilowday meesha soo dhigataan ku leeyahay ama kayga aan soo dhigto wallahi ana share gareenayo kaygan waa qurxan yahay ana hadda idin labo kaan u diray oo nasiibaad leedahay soo dhigniyo waxaan kugu soo diray in la soo dhigay aheeda anaga nagu sheegay ha ku diganin astur ceebta markaan aniga asturaay adiga ma asturat siilka gamaama iskale mise adaa iskale futadaada ma adaa iskale mise anaa iskale sababtan aniga kugu qarinaya maxay tahay adiga waa qarsan weysay waxaad adiga dayacday si aniga kugu xanaanaya ii sheeg waxaan ugu sheekaynaysaan bal fiiri aqligeena ha ku ciyaarina okay aqligeena ha ku ciyaarina naagahan soo dhalmagooyay ee dhilanimada u soo kaba gashtayna banaanka la keenaya okay ma kala gelinaysaan shaki ma kala gelinaysaan tafaraaruq ummadda Soomaaliyeed ee saqiirada ee dhalinyarada hadda soo koray naacda joojiye siilka idin qalala guslaana idin heeso wata kaamarada dee futada xaarka siilka aad marinaysaan maxaa kaaga soo baxay telefoonka dhanba dabada gasha hadaad doonto ma ninuu noqonaa nagu waalanin nayaada naga daaya naacda been kuma sheegay teela dhalatay iyo titus ma laha iyo maxaan ku yiraahdaa tan hadeertaan aan sheegay xaqiiqada aan ka sheegayna waa ii simeeyeen adiga naanay si ku kaleyn iyo aakhiraadka adaa lagu dhaw waxaas ani ma qoro naagta qaldan waa qaldantahay ninka qaldan waa qaldan yahay laakiin ninka maxaa la qabsadaaba naagtiyaaba naag kale rabtay inay nabtee ninkiiba goorma la arkaabo maxaa u qarinay naaga iga duubtaa tiri futadayda waxay tiri cambaar ku taal markaasaan tusinay markaas waxa soo beena markaad abuuraysid walaal xaqiiqadii isay wax u dhaceen adaaba gacanta ku haay madid oo ma is ogadee okay ma is ogo droogay cabtay miday u siigeysay miday kaamaro u furtay miday futada u kala qaaday war uma hayso hadda waa kan anaa ku keenay bal runta ka sheeg barta Suuriyaalaya okay waxa aad wadaan sheekada aad wadaan waxay tahay ilaahow maxayd ilaahow i protect garay highway no seexanayaay wallahi baawur kugu horay ayaan ba ay wade madaxu ka jara adiga is xanaanee futadaada iyo diintaada iyo iimaankaaga adaa mas'uulka ah aniga mas'uulkaaga ma badeecad banaanka soo dhigatay sharaftaadii soo xoortay ana rabtaa in iga dhaxraadisho sharaf ma 70 jir wada dhilooyinaatiin laba jirkeenu ku soo dhiloodeen anagu dhaxwaalanin de naag Soomaaliyeedna sharafta ma ka ridaysaan gabar yar oo Soomaaliyeed iyo wiil yar oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ana tashwiish iyo shaki ma gelinaysaan because this is a technology hadda soo baxay waa inay isku bartaan waa inay is arkaan waa inay ku sheekaystaan that's all it is because siilka lagama hadlo idinka waa yeeladin ila wajigeena laga baqaa uu soo ku kuduuto waxaad moodaa siil bajaaj ka dhacad moodaa wajigeena hadaad aragto fool xumada iyo feeratada iyo duduubka ku yaalo ila balbar hima marsan oo saq dhaxa isma marin kartaan darooga idinka buuxdo marka indha ku xitaa ma toosin kartaan markaasaad kaamarada markaa shidaan basiilkeed ku guraysaan dhag siilkii saarantahay laakiin dhalinyarada way ku sheekaysataa way ku qosashaa way ku kaftantaa waxbay iskula karsadaan meesha waxan waa technology waqtigoodii ay jirtaa tashwiish ka gelinina waji la daawada ma lihide 70 kor u dhaaftay siilka ka daabahash ila siilka af Soomaali kuma hadlay waxana waxa waaye waa kaamaro ninka ku dhex jiro meesha kaaga ma soo dhex baxay saaxibno bartaas loo ku jiro jooji naacda marka bentanada okay ummadana shaki kala gelinin siilkaaga adiga asturan weysana anaha igu qasbin inaan ku asturo